ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa labada bisha sagaalaad sanadka 2020 qodobada ugu doorka roon warkeenana waxaa ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay kulanka caawa Muqdisho kaga furmaya madaxweyne Farmaajo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe xog ku saabsan kulanka xasaasiga ee Muqdisho ku dhaxmaray Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Deni Shariif Xasan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweyne Farmaajo oo daafuray manhajka waxbarashada dugsiyada sare dagaalka siyaasadeed ee Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo oo sii xoogeystay iyadoo xiisad ay kaga sii dartay kadib markii shalay maamulka gobolka Gado ay sheegeen inay ka go'een Jubbaland shirka Muqdisho oo la sheegay inuu aarsi u yahay kii ka dhacay Masar 1997 ee dhaxmaray Cali Mahdi iyo Ciidida qoorqoor oo dibadda u safray xilli muran uu ka jiro heshiiska shirkii Dhuusamareeb 3 iyo Cumar Filish oo shaaciyay sababtu u fulin waayay ballanqaadkii furista wadooyinka Muqdisho intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada kuma haadsaneed inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalkan haatana warkiyo fidsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulanka Farmaajo Deni iyo Madoobe madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa caawa si rasmi ah u furi doona wadahadalada arrimaha doorashada ee u dhaxeeya dawladda dhexe Jubbaland iyo Puntland kulankan oo horey loo sii qorsheeyay ayaa waxaa si hordhaca kaga hadlay agaasimaha madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed kaas war qoraal soo dhigay bartiisa Facebook agaasimuhu waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xalay filla Soomaaliya ay kulan casha ku yeesheen xubnaha shirka ka qayb galaya isagoo rajeeyay inay ka soo baxdo natiijo saldhig u noqon doonta doorasho waqtigeeda ku dhacda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa qaadacay wixii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 waxaana ay Muqdisho ku yimaadeen cadaadis kaga yimid beesha caalamka docda kalena waxa Muqdisho ku kulmay Xasan Sheekh Deni Shariif Xasan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay Muqdisho ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo ee boqoshada ku jooga caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho Xasan Sheekh iyo mas'uuliyiin culus oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ayaa soo dhaweynta kadib kulan gaar ah la qaatay Saciid Deni oo Muqdisho u yimid isafgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka kulankaasi ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha xisbiga horu socod qaran Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha xisbiga himilo qaran Mudane Xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashi hogaamiyaha xisbiga Wadajir Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga Kulan Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Siiri iyo mas'uuliyiin kale oo madasha xisbiyada qaran ka tirsan sida uu ogaaday janalka dabagalka wararka waxa kulankaasi diradda lagu saaray arrimaha doorashooyinkii kala aragti duwanaanta ku aadan nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa maadaama la fahamsan yahay in meesha laga saarayo heshiiska shirkii Dhuusamareeb ujigiisa 3 Senator Ilyas Xasan Cali oo ka tirsan madasha ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook waxa uu ku yiri waxa kulan wada tashi ah yeeshay mas'uuliyiinta madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha Puntland kaasoo looga arrinsanayay mowqifka madasha ee arrimaha doorashada 2020-2021 sidoo kale xildhibaanada Salaad ayaa kulanka ku macneeyay in bilow uu yahay shirar siyaasadeed oo looga arinsanayo arrimaha doorashada dalka kulanka ayaa daba socda kulamo gogooni ah oo madaxweynaha Puntland uu ka bilaabay magaalada Muqdisho tan markii uu soo gaaray waxa lagu wadaa in heshiis cusub oo bedeli doona midka Dhuusamareeb uu ka soo baxo kulamada wada tashi ee ka bilowday Muqdisho kulamadaasi uu ugu weyn yahay kan fooda ay isku dari doonaan Axmed Madoobe Deni iyo Farmaajo dhanka kalena madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daafuray manhajka wadaniga ee dugsiyada sare ee dalka madaxweynaha ayaa manhajkan ku daafuray dugsiga Maxamuud Mire ee magaalada Muqdisho oo ardayda wax ka barata uu u qaybiyay buugta manhajka waxaana uu ku dhiirigeliyay in ay ka mira dhaliyaan hiigsigooda qofeed iyo tacabka dawladda iyo qoyskooda ay ku bixinayaan runtii maanta waxay noo tahay farxad iyo sharaf weyn in mar kale iskuulka hoose dhexe sare ee Maxamuud Mire mar kale aan ku daafurno barnaamijka sida uu sheegtay dugsiga sare sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daafurnay barnaamijkii dugsiga dhexe
haddana in aan runtii fursaddan qaaliga ah aan u yeelannay kulligeen nasiib inaan daahfurno barnaamijka dugsiga sare. runtii waa ilaahay mahadiis, waana runtii waa hawl wasaaradda aad adigu hoggaanka u hayso ay juhdi iyo wakhti badan gelisay iyo hay-adaha kale oo idinka caawinayay in aan yeelanno barnaamij midaysan ee waxbarasho laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare. runtii waa waxqabadka dowladdan dhanka waxbarashada oo aan ugu talagalnay carruurteenna inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda ka hor saan u sheegnay waddamada kale ee dhigooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan. waxaana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality-ga waxbarashada ee dowladdu ku guulaysatay inay runtii ka shaqayso ardadeenna inaan siino waxbarasho tayeysan. hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinnay 3 milyan oo buug macallimiintan aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixinno 1 milyan buugaag gaaraysa guud ahaan dalkao dhan. taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalkao dhan inaan gaarsiinno oo weliba aan ku mideenno quality-geeda. marka runtii mudane wasiir, shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeennadaada iyo wasaaraddaada qabateen aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahad celinayaa. iyo weliba sida aan u daadejinayno waxbarashada heer gobol oo aan 24 iskuulaan la wareegnay iyo 65,000 arday ay hadda maamulkoodii la wareegeen gobolka banaadir ay la wareegeen. weliba annagoo kor joogtaynayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkii aan ugu talagalay inay taagan yihiin, kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aan badinayno waxbarashada iskuullada ku soo wareegi doona gobolka banaadir. guddoomiye, haddee waxaan kugu soo wareejinnay intaasoo arday oo mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay. ilaahay kuu fududeeyo. annagu waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado. wax alla wixii taakuleena aad wasaaradda ka rabtan kolleyba dee diyaar ayaa lagula yahay. dee ilaaha kuu fududeeyo. dhanka kalena iyadoo Axmed Madoobe uu Muqdisho ku sugan yahay, haddana xiisado cusub waxay ka soo kordheen gobolka Gedo iyadoo maamulka gobolkaasi uu sheegay inuu ka go'ay Jubbaland. haddaba arrintaasi waxay dagaal siyaasadeed ka sii dhex abuurtay Axmed Madoobe iyo Farmaajo. warkaas iyo wararkeena kale waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna magaalada Muqdisho. iyadoo shirkii dhuusamareeb 2 ee shirar xiriir ay yeeshay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaasna heshiis hoose ay gaareen ayaa waxaa weli socda dagaalka siyaasadeed ee labada dhinac oo salka ku haya gobolka Gedo. maalin ka hor intii uusan Axmed Madoobe tagin Muqdisho waxaa magaalada Balad Xawo ku dhammaaday shir wada tashiya oo maamulka gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya magacooda ku shaaciyay inaysan aqoonsaneen Axmed Madoobe gobolka Gedona uu iskiisa u taagan yahay. Axmed Madoobe ayaa dhinaciisa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay qaska wada gobolka Gedo kadib war saxaafadeed oo uu ku qaadacay heshiiskii doorashada dhuusamareeb 3 waxaana mar kale labada dhinac ee siyaasad ahaan ku dagaalamayaan gobolka Gedo oo madaxweynaha Soomaaliya ciidamo badan hore ugu diray halkaasi. tallaabadii ugu weyneed oo uu qaaday Axmed Madoobe ayaa ah markii ay wafdigiisu tageen magaalada Muqdisho waxa uu ku soo daray gudoomiyaha gobolka Gedo ee uu isagu magacaabay kaas oo ka qayb galay shirarkii uu beesha caalamka la yeeshay arrimaha doorashada dalka, taas oo waji cusub gelisay loolanka siyaasadeed iyo is-aamin darada labada dhinac. aqoonsigii madaxtooyada Soomaaliya ee Axmed Madoobe inuu yahay madaxweyne ku meel gaara muddo 2 sano ayaa kaliya keentay sharciyad uu helay Axmed Madoobe waxaana dhicisoobay heshiiskii dhuusamareeb ee caadiyeenta xiriirka madaxtooyada Soomaaliya iyo Jubbaland.
danka kalena shirka muqdisho ayaa la sheegay in uu aarsi u yahay kii ka dhacay Masar 1979 magaalada muqdisho ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu shir uga furmo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland shirkan ayaana looga hadli doonaa aayaha dalka gaar ahaan doorashada soo socota iyo qodobo kale saddexda mas'uul ee shirkan ku yeelanaya magaalada muqdisho ayaa ka soo wada jeeda beesha daarood haase ahaatee madaxdan ayaa siyaasad ahaan ku kala duwan mid walba waxa uu wataa damac isagoo u gaara xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shirkan ka furmaya magaalada muqdisho uu la mid yahay mid Masar ka dhacay sanadkii 1997 waxa uu xusay in shirkan uu aragti ahaan u eg yahay kii Masar ka dhacay 23 sano ka hor ee Cali Mahdi iyo Xuseen Ciidid lagula gorgortamayay in ay kala qaataan xilalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shirka muqdisho ka socda wuxuu aarsi u yahay ama uu aragti eg yahay shirkii 1997 lagu qabtay dalka Masar magaalada Qaahira ee madaxweyne Cali Mahdi iyo Xuseen Ciidid lagula gorgortamayay qof madaxweynaha qaato midna ra'iisul wasaare joojiya kala aarsiga Soomaaliya ayuu ku yiri qoraalka daahir amiin jeeso soo dhiga bartiisa Facebook shirka muqdisho uga furmaya saddexda hogaamiye ee halka beel ka soo wada jeeda ayaana shaki badan laga muujiyay waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida ay suurtagal ku noqon karto in qodobo masiiri ah ku yeeshaan saddexda hogaamiye ee isku dhinaca geesta kalena madaxweyne qoorqoor iyo wafdi la socda ayaa waxa ay u safreen dalka Djibouti madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wasiir iyo xubno kale oo la socda ayaa duhurnimadii maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb wafdiga madaxweynaha waxa ay ku sii jeedaan jamhuuriyadda dalka Djibouti kadib markii casuumaad ay ka heleen madaxda dalkaas oo ay la qaadanayaan kulamo xoogooda ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha ila xoogagaala ayaa dabagalka wararka waxa uu sheegay in safarka madaxweyne Qoorqoor uu ku weeliyo wasiirka amniga Axmed Macalin Fiqi oo la kulmaya Israa'iil ka tirsan dowladda Djibouti iyo khubaro kale halka Qoorqoorna uu qaabilayo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ganacsato shirkado ka qayb qaadanaya dhismaha dekedda Hobyo iyo mas'uuliyiin kale oo dowladdaasi ka tirsan maamulka Galmudug ayaana sheegay inay dadaal galinayaan ka shaqeynta dekedda Hobyo oo kamid ah ilaha dhaqaale ee uu diiwaan gashan dowlad goboleedka Galmudug mashruuca lagu dhisayo waxa hore u balan qaaday dowladda Qatar inkastoo aysan ku dhaqaaqin fulintiisa waa safarkii labaad oo uu dalka uga ambabaxo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoortan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug socdaalkiisii kan ka horeeyay waxa uu horaantii bishii Agoosto ku tagay dalka Turkiga halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka gudoomiye Cumar Vilishna waxa uu shaaciyay sababta uu u fulin waayo balanqaadkii furista wadooyinka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Vilish oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xilkan la wareegay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo uu balan qaaday oo aan u fulin caqabado jira darteeda gudoomiye Cumar Vilish ayaana sheegay in sidii ay rabeen in waxay u qabtaan aanan u suuragelin isla markaasna ay jiraan caqabado ka hor istaagay ahdaaftii ay higsanayeen xaqiijinteeda wax qabad nooma wada suuragelin balse waan bilownay waxyaabo badan oo aanun qaban ayaa jira oo ay kamid tahay caqabadaha amni iyo mid siyaasadeed waxyaabii aan rabnay inaan qabanno waan ka gaabinay duruufaha jira darteeda niyad ahaan ma iloowin balanqaadkii bulshada horteeda aan ka bixinay habeenkii aan xilka la wareegnay waxay bulshada aad u daneynaysay dhagaxaanta magaalada iyo wadooyinka lagu xiray in la qaado arrintaasi waxa ay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suuragelin ujeedadu waxa ay ahayd magaalo isgudubkeeda uu sahlan yahay oo gees ka gees amni ah inaan ku shaqeyno balse arrintaasi waa inoo suuragal weyse culeysyada cadowga uu inoo dhigay wadooyinka aan ku shaqeyn lahayn darteeda ayuu yiri gudoomiye Cumar Vilish gudoomiyaha ayaana sheegay in marka hore dhagaxa laga qaado lagu bedelay in goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab la weeraro si looga saaro cadowga goobihii ay kasoo duulaan tagi jireen sida uu yiri waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay qaadeen tallaabooyin amni oo al-shabaab ka dhan ah lagana xoreeyay goobo ay ku sugnaayeen oo kamid ah deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan haddii anagu cusubtaan ugu soo biro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka